أما أي آدي لها ينقرش الشيء إن كون مواطنين كثير ولا يقوم بالقوة نلقوا بأيه الله حين كانت نمرة إسلام حين كانت مطلعنا وما كان أما حاول عيد المسك الصومالية كواس وأهدف إذا نبتعد هذه الولايات نحنت هذا أنك يفاجأ إن أيها الصومالية كلهم منصب حضور نواد القرار وحب عيدك بوليسك الصومالية وسرقيش عيدك بوليسك الصومالية أنت حريص أكاديمية بوليسك جدارك وأنا مسكحة يومانك وقابية عيدك بوليسك الصومالية إن أي كل شرعية سيد نواد وحسلونية وأنا سرقيش يدي وسرقيش أمد الصومالية وسرقيش عيدك بوليسك الصومالية ومسكحة أنا قاعدين إيماني هو كلو أنا نحدث الجرم magacaygu waa Cabdixafiid Cabdullaahi Maxamed waxa ku soo xarooday tababarkan 2016 bisha Abriil 12keedii ayuu tababarkan oo bilaabaday maanta alxamdulillah insha Allah sabdi safar baan ahnay waxaan u soconaa jibi kaleeto tababar kaleeto cusub nolol cusub insha Allah waxaan jecelnahay anagoo wax soo baranay wadankeena dadkeena shacabkeena ina wax u soo qabana wax u soo barano waxa u soo baranayeen waxa waay wadanka ayaarna wax ina u qabanay shacabka wadanka u soconay waa wadan dad walaaleen ah Djibouti waa insha Allah marka rajo shalay wallahi bila waxa aaminsanaa waxyaalo kaleeto jibiyaal kaleeto shalay hada ku soo biir ciidanka Soomaaliya isma dheheenin wadanka aniga isma dheheenin inaan ku soo biir ciidanka booliska laakiin wadanka marka ku soo laabtay wadan dib u soo laabtay aniga wadan shisheeye ka imaaday Kenya wax ku soo bartay wadanka marka imaaday waa wadan jecelahay kuliye nolosha Soomaaliya kuma qaadan waqti wadan kale taay waqti ku soo qaatay marka saas daraadeed wadanka waa jecelahay inaan ku soo laabto waxa faa'iido si yeeshtay oo
oo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya oo u fidiyay ardayda wax soo barteen inuu fursado waxbarasho dibad ahaato wax walba ahaato inuu jaanis u helay eqsab qayb qaadan karaan wallahi dhalinyaradaas hadartan waxaan dhihi lahaa wadankiina dalkaada ahan dareen ku joog waaye qof walba dhalinyaro waxaa dhihi lahaa taariifkiina iska dhaafaan wadankooda u imaadaan inay wax u qabtaan dadka shacabkooda inaa qof maanta aniga wadankeena wax u qabta u taaganahay nin kale shisheeye wax ima qabanayo maanta dadkii anaa inaa wax u qabta u taagan diyaaraan u ahay insha Allah magacayga waa Leeli Sargaal Maxamed Cusmaan Aadan ka tirsan Leeli saraakiisha ku xareysan Jarnaal Kaahiye dhawaan waxaan soo xaroonay 12 Abriil bisha 4aad waxaan hadda aan cabshaan u socnaa dalka walaalaha aan ee Djibouti كل ما أنا أمثل لكن مالين ما لها كمان إن فرصة عن إيمان السوق أن يرى أقوال له ذلك إداتك إدينته إن علشان الله بها. مجاعي وليل سرقال فردوس عبد الله عبدون عيدن كبوليس كوحن قصاب بيري من سنة كي لو ذكر تواني لحدة بشي أبريل لبي توان كدي وحكو فرح السنة هاي يعني هير دكتور سرقة إن قصاب بيري عيدن كبوليس كا سيدا كله حكو فرح السنة هاي إن أمدو كوي توان بلاده حكو قاتو وضن كيجا قاصد العاصمة ده توبر oo dhinac walba leh hadii aan hayo xagga jirka iyo xagga maskaxda sidoo kale waxaan ku faraxsanahay in maanta oo taliyaha noo soo gootinayo tababar aqoon gararsi ah oo aadeyno wadankan walaalahan hanay ee Djibouti waxa anaga sida aan aaminsanahay waxa u nahnay gabdhaha aqoon-yahanada in ciidanka booliska ku soo biiraan horiyaal lama filanayn in gabar oo intaas sanad wax soo baranaysay oo wadankan burbur bursanay muddo dhan dhowr 20 sanadood inta dhibaatooyin wax lagu soo baray haddana in ciidanka booliska ka mid noqonayso soo anaga waxa u nahnay marka dhiirigelin in ciidanka booliska ka mid noqono tusaale wanaagsan aan u nahnay gabdhaha Soomaaliyeedna oo ku dhiirigelinaya inay ka mid noqdaan ciidanka booliska iyo dhammaan ciidamada qalabka sida بسم الله الرحمن الرحيم مقعي عبد الله أحمد إبراهيم كترسن سراكيشة كوي تومبلوت كحرسنا أكاديمية جنرال كاهية كنت وحن كصوب بيري عيدن كدلوس الصوماليات لبيتمنكي أبريل أبريل كصوب بيرني on macnaha tababarka halkaan noogu furmay annagoo dhalinyarada macnihii ahayd magaalada joogto oo markaas wax baratay shaqo kale aanan haynin maanta waxaan hamigeyga iyo dhiigeyga iyo macnaha xoogeyga iyo aqligeyga intaba aan u horay inaan ugu shaqeeyo wadankeyga iyo dadkeyga maantana taliyaha wuxuu noo sheegay in macnihii aan Djibouti safar aan u nahay oo xaggaas aan kusoo dhammaysan doono koorsadeena inta ka dhiman marka dhalinyarada Soomaaliyeed dhammaan waxaan ku baraarujinayaa ama aan ku guubaabinayaa inay dhammaantood u shaqeeyaan wadankooda inay wax u qabtaan dalkooda inay macnihii bixitaan wadan kale iyo safar wadan kale u safraan iyo wadan kale dhismihiisa ay ka qayb galaan ama ay inta tagaan taariikh ku tagaan ama ay badaa ku dhintaan inaysan waxba u qabanaynin maanta tan wax u qabanaysa ay tahay in wadankooda ay dhisaan ay wax u qabtaan taas ayaana horumar wadanka uu ku gaari karaa dal walbana waxaa dhisa dadkiisa iyo dhalinyaradiisa marka aniga waxaan rabaa oo dhammaan Soomaaliya oo dhan aan u jeedinaa dhalinyarada aan u jeedinaa in wadankooda ay hagar la'aan ugu shaqeeyaan qof walbana oo macnihii intii kaalin uu ka geysan karo uu ka geysto dhalinyaradana waxaan ku waaninayaa kuwa wax bartay inay ku soo biiraan ciidanka booliiska iyo hay'adaha kale ee dawladda haddana waxaan ku soo dhaweynayaa saaxiibkay isku tababarka aan nahay Saadaq Cali Maxamed oo noo soo jeedi doona gabar yar oo ku saabsan
dhammaan dhallinyarada. waa mahadsantahay walaalkayga oo aan muddo iskula soo jirnay dugsiga sare ee Jarnaal Kaahiye. maanta waxaan malaynayaa ninkii la dhashay guri igu nool iyo maanta walaalkayga garab taagan inaan maanta ninkan nafteedina maalkayga iyo dhiigayga u hori karo sababtoo ah ninka kaliya maanta dheef wadaaganahay oo sariirtii wada jifnaa oo isla cunteeno macnaha askariyadana noloshan waxay ku tusaysaa shacabnimada iyo ismalan ciidanimada marka fiirisid waxaan isleeyahay maskaxiyan iyo jir ahaanba inaan u kornay oo ka soo baxnay noloshii oo shacabnimada ahayd halkaas markaan ku soo koobo wax yar oo dhalinyarada caalamka hadda aaday sida Liibiya ku dhibaataysan oo naftooda Yurubta geeyo xoogooda ugu faa'iideynaya reer galbeedka shisheeyaha maskaxdeena duubsaday waxa rabo inaan maskaxdooda soo amaayo xaggan u soo jeediyo aan dhaho walaalayaal dalkiina ayaan sugaayo dalkiina ayaa sharaf ku leeyihiin dhul shisheeyana ninkii tagaa alle ilaahay waxaan u maleynayaa ceeriyo iyo wuxuu kaniisadii waxyaalo nolol oo aad u liita ka helmaan inuu sharaf iyo qiimo ku lahayn ilaahay nagu dharshay heebada ciidanimo iyo sharafta ay leedahay Soomaalnimada markaad fiirisaan yaa damiirta qofka markay leedahay Soomaalnimada kugu jirto isbedel weyn ayaa dareemi kartaa hadda markaan ka gudbo xogaa qiiro yar baa ayso waxaan dhalinyarada inaan tixyar kula hadlo dhalinyarada Soomaaliyeed way dhaqan gudoomeynay dhul shisheeye goorta tageen dhuli laga qaadiyay dhaqankii islaamnimada way kala dhaqaaqeen sidii geel dhanaan loo horay dabacayeen dhidii libaaxii dhurwa dhiiran baa helay dhagar qabe abees iyo mas baa dhaawacay oo dilay dhaanagay meel u helay dhaanagay wax kale meel yar roob ku daay masiyurtan dhalaalayso dhaanagay meel helo yara dhalaalayso dhalanteedkan beentan bay dhab u rumaysteen sidii geel dhanaan loo horay dabacayeen dhidii libaaxii dhurwa dhiiran baa helay dhaaniskii kilaabada sidii dhaanta loo baray surwaalkii dhexda kuma xirna oo ka dhacayay koofiyad dhan loo jeediyay dhalada saarteen lugta midig bay dhiibaan sidii dhurwaayge dhaqaalihii dibadda loo toontay dheeftii laga waayay alla ilaahay dib baa tal dibadda ninkii darag oo istaayo aamina dhulkiina hooyo aamina darag baad ka helaysaan aamina dhulkiina hooyo dheef baad ka helaysaan Soomaaliya ha noolaato cadowgeeda ha jabo guul Nabad baan ka goobnaa